السلام عليكم ويوسف شراء اسكو soo noqod wanaagsan maanta waxa aan ka hadli doonaa hadii ilaahay idmo mowduuc runtii isaguna aad muhiim u ah xiriir dawla leh wixii aan ayaamihii dambe ka hadlaynay ama waxyaabaha channelkan ku soo gudbiyo scholarship-yada iyo admissionska jaamacadaha iyo sida loo helo mowduuc xiriir dawla leh sidoo kale career professional kaagana xiriir dawla leh oo shaqooyinkan loo tartamo qofku markuu xareynayo runtii asaas u ah qodobkaas waa qodob aad iyo aad muhiim u ah waxaana weeye internships waxaan ka wada hadli doonaa marka internships haddii ilaahay idmo iyo faa'iidooyinka uu leeyahay iyo sababta ay tahay in aad adigu internship u samaysid haddii aadan channelka subscribe oran fadlan subscribe share like lana sii wadaag asxaabtaada haddaba aynu toos uga galno sababta aad ugu baahan tahay internship inta aanan marka sababahaas sheegina bal aan internship afterkiisa isla fahano oo aan isla qeexno waxa uu yahay internshipku marka waxa weeye waa short term professional learning experience waa muddo gaaban xirfad ama professional aad wax u meel ka baranaysid taas xirfadaas oo aad ka baranaysid shirkado caawiya dadka oo qof goortuu tusaale ama uu jaacada ku jiro ama uu iskuulka ku jiro high schoolka ama ka soo qalin jabiyo ayuu wuxuu tagayaa shirkadihii buu la shaqeynayaa si uu u fahmo environmentiga marka waxa uu weyn meesha uu ka soo helayay wax weeye waa practical work experience inaad fahantid dunida sida u shaqeyso laana jaamacadaha wax lagu barto iyo waxa xaqiiqda shaqada dunida kala taala aad u kala duwan yihiin waxa iskuulada lagu barto koorta dunida caadiga aad u timaadid oo reality-gi wax badan bay ku kala duwan yihiin marka qofku wuxuu helayaa fursad in uu balbarto isagoo waliba goor hore aan shaqo bilaabin inuu fahmo sida ay u shaqeyso shirkadu sida ganacsigu u shaqeyso dawladdu u shaqeyso sida hay'aduhu u shaqeeyaan iyo markaas meel kasta oo marka uu xiiseynayo marka internka waxa uu ka shaqeynayaa projectiyo la xiriira waxa uu soo bartay ama waxa uu xiiseynayo waxa uu meesha ka kasbadaa xirfado soft skills oo caawin doona hadhow career professionalkiisa oo mustaqbalka marar badanna internship-yadaas waxa ay kalifaan in ay isla qofkii meesha uu internship ka sameeyay uu ka shaqo bilaabo full time xagga u bedelo marka isku soo duuba internship waa muddo kooban in aad shirkad la joogtid ama hay'ad la joogtid taas oo aad xirfad kaga kordhisanaysid kuna diyaarinaysa in aad mustaqbalka qof shaqeeyo workforce-ga ku beeraad noqotid haddaba waxaanu isla eegaynaa marka faa'iidooyinka iyo sababaha ay runtii u fiican tahay inuu qofku internship sameeyo waxyaabaha ugu horeeya oo qodobka hadda carab ku dhufanaya waxaa ka mid ah qofku inuu helo work experience iyo exposure inaad la-aana uga aragteen badanaa goorta istiraahada shaqo xaree dawladda ama UN-ka ama meel kale waxaa lagu oranayaa work experience 3 years 4 years lagaaga baahan yahay laana qof toos iskuulka uga soo baxay khibrad shaqo malaha sida dunidan shaqada u shaqeysay office ethics iyo office waxa weeye experience malaha marka qofkii waxa ay ku sahlaysaa internship markaa gasheena xirfad aad ka soo kasbatid meeshii oo baratid communication-kii soft skills-kii kale muhiimka ah baratid wixii sidii loo qabanayay baratid kadibna aad hadhow aduguna noqoto qof xirfad loo sidaa ku shaqo gala exposure-kun waa inaad fahantid xiriirka dadka ka dhexeeya sida dadku service-yada u bixiyaan si hay'aduhu u shaqeeyaan si dawladdu u shaqeyso waxyaabahaas oo dhan inaad baratid mid labaadna waxa weeye inaad network aad buu muhiim u yahay waa maalmihi dhowto hadda fiidiyoyadii u dambeysay kala kooda hadlaynay haddii ilaahay ku ogol yahay networking-ka waa inaga isbuuci u dhow damiska hadlaynay referenceska marka referenceskan waa inaga dadka qaybtooda ka soo qaadanayso dadka la shaqeynaysa marka inaad goobta shaqada asxaab ku samaysatid dadka khibrad badan aad ku samaysatid kadibna hadhow reference ku qoraan ay ku noqdaan mentors wax badan ka baratid oo la xiriirtid oo nolosha waxyaabo badan ka caawiyaan marka taasna network baad ka helaysaa waliba de fieldiga marka xiiseynaysid industry-ga aad jeceshahay ka shaqeeya qodobka kale isaguna muhiimka waxa weeye in ay qualification-ka meesha shahaadada ka soo qaadatid warqadaha ka soo qaadatid CV-ga ku daraysid oo hadhow maca work experience-ga CV-ga qaybta work experience-ga aad ku dartid meeshaas ayaa 6 bilood internship ka soo sameeyay waxaasna waan qaban jiray ama waxaas baan mas'uulka ahaa waxaad kaloo helaysaa inaad corporate culture-ka iyo xafiisyada iyo sida looga shaqeeyo iyo dadku duties-ka ay kala leeyihiin xiriirka ka dhexeeya power-ka iyo structure-ka sida loo kala sareeyo waxaan assistant manager deputy assistant manager waxaas iyo qof kasta shaqadiisa iyo shuqulkiisa iyo meeshu ka soo galo baa fahmaysaa mid u dambeysana waxa weeye inaad fahantid inaa adigu laftirkaagu identify garaysa speciality waxa ku fiican tahay area-da aad xiiseynaysid
inaad kala ogaatid industry kala badan haddaad internshipyo badan samaysid meel kasta waxa ay xooga saaraan ama waxa ay ka shaqeeyaan kadibna aad ku sahasho hadhow adoo waqti badan kaa dhumin inaad goor horeba dooratid xirfadaadu meesha ay aadayso shaqadaada specialitygaagu dhanka uu noqonayo marka waa taasna waa faa'iidooyinka kale ku jira chanceska kale ee benefitska kale aan faa'iidooyinka kale ku jira wax weyn inaad heshid mentor inaad heshid qof kaa weyn kaa waaya aragsan 10 sano 20 sano 30 sano shirkadan iyo servicekan ama ku jira industrygan kadibna uu ku hago oo waxyaabo badan oo isagu bartay ku siiyo ka ilaaliyana khaladaad badan oo isagu soo bartay ama uu soo maray aad samaysid marka meesha waxa ku helaysaa dad waaya arag ku haga waxa ka helaysaa feedback fiican oo haddii aad shaqaysid oo wax khaladid feedback baa lagu siinaya waliba critical mararka qaybtooda lagu dhaleelay lagu leeyahay saan waa khaladay saas u samee feedback uu fiican yahay ama positive ahaada ama negative ahaada hadduu positive ahaadana dee waa mid ku sii dhiirigelinaya hadduu negative yahay waa mid adiga ku bahalkeenayo ku dhiirigelinayo ku saxaya and boost confidence waxa uu kor u kicinaya ama sare u qaadaya confidence-iga iyo kalsoonidaada inaad bari shirkad kasta aad tiraahdeed khibradaan aan leeyahay oo ka dhex istaagtid oo ka shaqaysid oo aad yani wixii aad baratay aad hadhow dadka ugu adeegtid waxa uu ku sahlaya qodobaan hadda soo sheegnayo waxaad jeceshahay waxaadan jeclayn haddii aad hadda assistant ka noqotid shirkad oo kale booska ma jeceshahay waxyaabaha shirkadaas ay qabato ama responsibility-ga lagu siiyey ma yihiin kuwa aad rabtid aad mustaqbalka inaad samaysid marka goor hore waxay ku siinaysaa fursad ah inaad fahantid meelaha aad jeceshahay waxyaabaha aadan jeclayn midda kalena waxa weeye inay ku siiso competitive edge oo ah in hadhow haddii shaqo la soo xayeysiiyo oo shirkadaasba ay soo xayeysiiso adiguna aad internship leedahay oo aad khibrad leedahay oo waxyaabahaas kale ka soo shaqeysa qof kalena uusan lahayn aad adigu kaga horreynaysid oo aad competitionka adigu dee wadatid khibraddaas iyo waayo aragnimadaas midda kalena waxa weeye waxyaabahan waa inaga resume-ga way kugu biiraysaa iyo CV-ga waxay kugu biiraysaa haddii ilaahay kugu leeyahay referenceska waxyaabahaas marka scholarship-yada iyo waxyaabahan ka wada hadalana internship qofku goorto horta runtii aad bay u tixgeliyaan wax qof khibrad leh oo qof soo shaqeeyay waxa uuna keeni karaa dad waayo araga oo isaga iyo ka sheekeeyay shaqadiisa marka waa qodob runtii xasaasi ah faa'iidooyinkiisuna ma ah kuwa aan 10kan qodob kaliya kusoo koobi kara ciidaas ay ka badan yihiin waxa ayna tahay qof kasta bal inuu marakan ka fikiro war internship ma heli karaa xagee ka heli karaa shirkadaha localka ma ka heli karaa kuwa dibadda ma ka heli karaa laana runtii faa'iidooyinka ay keenayaan oo ay kusoo biirinayaan CV-gaaga haddii ilaahay ku ogol yahay malayn kari maysid waxayna kuu sahlayaan inaad shaqo fiican heshid ama scholarship fiican heshid internship marka badan baa jiro iyo meelo badan haddii aad weydiinaysa xagee baa internship ka helaa waxaa ugu badan meelaha ugu badan oo laga helo waxaa kamid ah UN internships ciida ka badan bay bixiyaan qaybtood remote ah online ah qaybtoodna ay yihiin kuwa oo on site ah oo aad xafiisyadooda aad tagaysid oo aad ka shaqaynaysid waxa kale oo keenaysaa shirkadaha waaweyn ee technology-ga waxaa arkaysaa Google, Microsoft, Tesla oo xayeysiinaya internships dadka technology-ga xayeysiinaya marka industry-gaaga dadka marka barnaamijyadan haddii ilaahay ku ogol yahay soo bandhiga baad dabageli karaysaa waana helaysaa anaguna website-ka aan samaynay ee Soomaalisku isagana waan soo dhigi doonaa fursadahaas internship-yada waxaa kaloo internship-yada laga helaa public sector-ka oo dowladda iyo hay'adaha ayaa marar badan shaqo geliso dad junior dhowr bil say ula shaqeeyaan 7 internships oo kale aad common u ah private sector-kii baa helaysaa shirkadaha waaweyn oo communication-ka shirkadaha waaweyn oo ganacsiga marar badan inkastoo Soomaaliya ay qabyaaladii ay curyaamisay qofka ehelkiisa uu wax siinayo misna taa laftirkeedu wax ku raadsadaa ku heli karaysid oo internship ka soo sameeya meelahaas ay hadhow kugu noqoto waayo aragnimo badan oo aad CV-gaaga ugu dirsatid samarka iyo graduate internship-ka badan aad dadku goorta undergraduate ka soo dhameeyaan ama master ka soo dhameeyaan shirkada iyo hay'ado badan baa si fursad graduate programs oo qofku inuu bal junior noqdo workforce-ga xaga ka soo galo marka iyagana isha lagu hayo scholarship-yo internships oo fara badan waan soo dhigi doonaa ugu dambeyntiina waxaan doonayaa inaan idinka sheekeeyo khibradeyda waayo aragnimadeeda internship-ka dhowr internship baan sameeyay laakiin labada internship baa igu muhiimsanaa United Nations System Staff College UNSSC oo ah hay'ad UN ka mid ah oo xarunteedu tahay Turin Italy oo aan la shaqeynayay ilaa 5 bil dhanka remote ah runtii paid internship uu ahaa internship-kun laba u kala baxaa oo mid waa paid oo lacag baa lagu siinayaa midna maaha paid oo waa unpaid oo lacag lagu siinayo marka qof dhalinyarada iska tahay aan shaqeyn marka paid-ka doona haddaa heli karaysa haddii aad laakiin weydid paid-ka unpaid-ka laftirkiisu fiican yahay khibradda laftirkeedu waa muhiim anigu marka internship-kayga koowaad wuxuu ahaa paid internship kan labaadna internship-ka labaad tusaale usoo qaatayna wuxuu ahaa
Central Anatolian Exporters Union oo waagii aan Turkiga joogay baan sameeyay waliba markaan undergraduate last year aan ahaa baan sameeyay isaguna hal bil buu ahaa paid buu ahaa laakiin khibrad aan caadi ahayn baan ka dhaxlayo shirkad ka samaysa waxyaabaha Turkidu sameeyaan dibadda u dhoofisa baan la shaqeynayay bil waxaan fahmaysay u shaqeeyaan adeegyada ay dhoofiyaan wadamada ugu badan wax u dhoofiyaan say dawladdu u taageerto dadkaas wax dhoofiya runtii waxaan ka helay xirfadan caadi ahayn lacag bay igu siiyeen dad badan baan xiriir kula yeeshay kaararkoodii bay soo wada siiyeen markaan soo qalin jabinay xaflad bay sameeyeen dhamaantoodna waxay yiraahdeen wax way talooyin wax ku oolo aad i caawiyay sanadihii soo socday ku xigay internshipkaas kadib aad i caawiyay bay siiyeen marka waxaan ku laabanayaa United National System Staff College UNSSC oo akii ugu dambeeyay sameeyay intaan London deganaa wax way shantaa bil wallahi kiradeeda guriga London ka deganaa UNSSC baa bixinaysay oo lacagta beedka ay siiyaan baan kiradeeda ku dabiray markii Chevening lacagtayga goosteen oo barnaamijka Chevening dhamaaday kaliya ma hayna ka faa'iiday xogaaga lacagta laakiin anoo qolkayga dhex fadhiya baan u shaqeynay maalinkii full time baan shaqeynay waxaan bartay software ciida ka badan waxa aan la kulmay dad badan oo hay'adaha UN ka u shaqeeyo oo UN badan laana UNSSC waxay tababartaa hay'adaha UN ka kala bay tababartaa marka tababarkaas la tababaray dadka UN ka u shaqeeyo aniguna maadaama aan meesha joogo Zoom-kii aan gadaal ka maamulayo waxa weeye tababarka adiguna waa qaadanaysaa cilmi badan baa iga soo kordhay country offices ka dadka New York, Cairo, Geneva waxaasoo dhan kala jooga baan la xiriirinay email la u diraynay communication-kii baan ku bartay waxaan ku bartay hay'adaha kala duwan ee UN ka agencies ka mid kasta waxa ay qabato iyo mission-kooda iyo vision-kooda waxa aan helay access fara badan website-yo lacag lagu subscribe gareeyo ama aqoon ha ahaato ama editing ha ahaato ama mailing iyo ha ahaato communication baan si free la iisiyo maadaama iyagu email ii sameeyeen emailkaas wuxuu ii sahlayna meelo badan oo iyagu iibsadeen aan ka qayb galo aan waxyaabo dan aan anigu leeyahay ku samaysto marka yani maalin dhan baan ka sheekeyn karaa waxyaabahan ka faa'iiday waxyaabaha aan ka faa'iiday haddii aan hadda mid practical oo kooban in ka tuso waxaa ka mid ah LinkedIn waxa uu leeyahay qayb learning ah oo normally aan free ahayn oo qofku hadduu rabo inuu qaybtaas galo oo kale ay tahay inuu lacag bixiyo learningkaas waxa ka helaysaa malaayiin courses oo free ah goortu qofku uu subscribe saaro dabcan ama uu lacagta bixiyo laakiin maadaama aan hay'ad UN la soo shaqeeyo oo email UN aan lahaa LinkedIn Learning wuxuu ii noqday free oo halka haddaan goortan imaado oo kale waa kana Yusuf Shire United Nations System Staff College login-kii baa weli igu xiran kaasoo ii sahlaya inaan kumanaan course oo business-ka la xiriira creative-ka la xiriira technology-ga la xiriira inaan barto oo waxaasoo dhan free bay yihiin laakiin haddaan account caadi oo personal ka soo galo koorsooyinkaas lacag bay iga rabaan ama LinkedIn learning-kii baa wuxuu iga rabaa bishiiba inaan €30 ama €38 xasaas ah bixiyo marka waan ku dhiirigelinayaa runtii dhalinyarada oo waxa way internship-ka faa'iidadiisa maaha midaan muuqaal ku soo koobi karo hadda isbuuc dhaweyd waxaan soo dhigay UNFPA oo internship ardayda Soomaalida ugu wacaysa marka internship-yada xareeya remote iyo wuxuu leeyahay iyo hadii ilaa ku idmay on site ina online ka shaqaysid iyo inaad xafiiskooda caadiga la shaqaysid marka xareeya internship ciida ka badan oo soo dhigay doona hadda kadib marka loo warhayo internship-yada faa'iidadoodu aad bay u badan yihiin insha Allah kulamo kalena waan qaban doonaa oo aan ku ballaminayo asxaab aan ogahay oo hadda UN kala shaqeeyo waliba lacag lagu siiyo internship-ya faa'iidada kale ku jirtana waxay tahay qofka koorta internship-yada dhameeyo shirkadaha badi hay'adaha badi qofkii way qaataan koorta ka helaan laan khibradiisii baa la arkay inuu qofkan dedication-kiisa inuu shaqada jecel yahay baa la arkay full time shaqo baa la siiya marka ku baraarugsanaada oo runtii ogaada faa'iidada uu leeyahay internship-ku inuu u leeyahay shaqadaada koow inaad mustaqbalka shaqo fiican heshid CV-gaaga inaad internship heshid inaad wax ku baratid anigu intii aan 5 bil bartay qaybto jaamacadahan soo dhigtay 4 sano 3 sano kumaanan baran laana real life practice baa lagu siinaya marka doonima inaan ku sii dheeraado insha Allah waxaan rajaynayaa inaad internship-yadaas aan soo dhigi doono aad xareyn doontaan ka faa'iideysan doontaan xirfad ka dhaxli doontaan shaqo ka dhaxli doontaan lana sii wadaagi doontaan walaalaha kale guntii gabagabadii intaas baan kusoo koobayaa fadlan hubi inaad like share iyo subscribe tiraahdo isbuuca soo socdana mawduuca volunteerism-ka baan ka hadli doonaa inaad volunteer samaysid iyo faa'iidooyinkiisa lana sii wadaag muuqaalkan oo
usii gudbi walaalaha isleedahay way ka faa'iidaysan karaan adiguna ilaa inaa share iyo like tirahdid ilaa kulankan kan xiga waa Yuusuf Shiro idin la isma dhaafin assalaamu calaykum